السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنا أدن إسماعيل waxaan kala hadlayaa Hargeysa caasimada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan salaamayaa dadkayga Somaliland meel kasta joogaan iyo dadka Soomaaliga ku hadla meel kasta joogaan ayaan salaamayaa. waxaan doonayaa inaan kelmad yar ka iraado shirkii toddobaadkii dhaweyd Djibouti lagu qabtay ee wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ee ay gogosha u fidisay Jamhuuriyadda Djibouti. ugu horeyn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dawladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele gogoshay qurux badnayd sharafta badnayd ee uu noo fidiyay ee noo suura gelisay inaanu 4 maalmood si wanaagsan oo diiran aan u wada hadalno oo bisaraaxa aan u wada hadalno oo muranno wax iska dhaadhicino aad buu ugu mahadsanyahay. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa oo aan ammaanayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Djibouti ee sida quruxda badan u hogaaminaya shirka inuu dhexdhexaadinayay. waxaan leeyahay ninka hooyadii nin bay dhashay. waxaan arinta isu socodka ee waxyaabo wax la sii faaleynayo wax laga sheegayo isu socodka dalalku way jiraan ilaa maalintii dalkan aynu ku soo noqonay ee aynu dalkeena nabad ka dhalinay waxa inuu imanayay dad meel kasta ay doonaan ka yimaado Soomaaliya ka yimaada bay'ad mushtarku uu socdaa dukaamay ku leeyihiin dahablayaal bay ku leeyihiin meherado badan bay ku leeyihiin wax dhibaato ah ma geystaan iyagana looma geysto. waxaa jira sanad walba waxaan dhignaa bandhiga buugaagta Nuuraddiin Faarax waa kuma buugiisii buu keenay halkan qaar buu iibiyay buugaag kale oo dad kale qoreen buu sii iibsaday qoraalayaal kale ayaa ka yimid Soomaaliya gudoomiyaha jaamacadaha Soomaaliya ka yimid wax dibindaabiye ah iyo wax ceeba iyo wax dhibaato ah oo ay geysteen ma jirto. dadku wuu isdhex socdaa ardaydeenu jaamacadaheena ay ka baxdaa xagaa way tagtaa xagaa way ka yimaadaan jaamacadeedan qaar badan baa ku jira Soomaaliya ka yimid wax dibindaabiye iyo wax dhibaato toona kama arko. qaar shaqaalahayga qaar baa ku jira dadka bukeey cisbitaalka jiifa waan ku daweynaa waa dadaanu soo dhaweyno waa dad waayeelo waa caruur waa dad dhibaataysan xaq bay noogu leeyihiin waa waajib sidaan qofka Somaliland u daweyno baan iyagana u daweynaa wax dhibaato isu socodkaas ma jiro. dhibaatada aan u aragnaa waxa weeye qofka ku talagala inuu socdaalka ku yimaado inuu dhibaato geysto ama ku keeno dibindaabiyo abuuro kama ogolin. marka haddii koox ciyaartooy ay timaado oo lagu soo dhex qariyo Somaliland rabshadaha laga dhigo tan marka horeba ilaan baarashuud ku soo daadan maayaan airport bay soo marayaan oo marka hore laga wada hadlaya oo waxay u imanayaan bal laga wada hadlaya marka ayaan babisal la isu ridin. Somaliland inta ka weyn oo ka maskax wanaagsan saad u aragto dhibaatada baan nagu boo aragnaa. marka waxaan horta ammaan kale aan u fidinaya mudanayaashii wasiiradii aanu israacnay Djibouti doodii Djibouti aanu ka qayb galnay aad baan u amaanaya wasiiradii aan wada soconay oo ku kalsoonahay kartidooda iyo hawlkarnimadooda iyo hadal yaqaanimadooda. intaan meesha joognay waxaan ku qancay oon arkay oo aan aad ugu farxay sidii aan wada jir ka aan wada shaqaynaynay ee waliba hogaamo wanaagsan la socdeen oo Zaciim gudoomiyaha guurtida mudane Saleebaan aadan iyo madaxweynihii oo madfaci weynaa oo noo joogay isaguna ahaa team dhan oo adag ayaanu ahayn oo suura geliyay doodihii iyo wixii aanu dhibaato aragnayna aanu ka hadallo wixii aanu dan u aragnay Somaliland dan u aragnana inaan difaacno. marka waxaan leeyahay waxba yaan babisal idin ridin Somaliland dayalka inooga maraxsamayso waxaad ogaataan Somaliland cirkeeda diyaaradaha ka soo qaad diyaarada markay ka soo duusho dal
dalal badan bay soo dulmartaa kaba soo qaad diyaarada ka timaada London ka timaada marka Ingiriiska soo kacdo Faransiiska soo dulmartaa Talyaanka soo dulmartaa waxay soo martaa Greega Masar bay soo dulmartaa Suudaan bay soo martaa Jubbay soo martaa Ethiopia soo martaa markaas inagana dulmartaa Soomaaliya si dulmartaa Kenya hadana u sii talowda intaas oo dal irkiisa markay dul marayso dalka ay dul marayso ayaan nabadgelyadeeda iyo hogaamideeda iyo dariiqay marayso dalka ayaa mas'uuliyad ka saarantay marka taan ka wada hadalay waxa weeye diyaaradaha cirka Somaliland iyo cirka Soomaaliya maraya mid walbaba inuu mas'uul ka ahaado oo aynu wada hogaamino way diyaarada dalkayga soo gasha ee Soomaaliya u sii socota waynaanu ka wada xidhiidna xaga ka imanaysa aniga dul maraysa ama fariisanaysa waan laga wada hadlaa oo aan ogaanaa oo say u fariisan lahayd iyo haadkii ka soo fariisan lahayd laga wada hadlaa marka guddi farsamo oo adiga anigaba inooga aqoon roon oo hogaaminta diyaaradaha ila millions baanta cirka maraya khabiiro ku ah ayaa imanaya labadii wafdi ee Somaliland iyo Soomaaliya ka socday oo Djibouti dhexdhexaad u tahay iyo khabiirada ayaa wada hadlaya oo sida dalka kaleba loo kala hogaamiyo diyaaradaha dul maraya ayaa inaga loo kala hogaaminaya marka cirkeena Somaliland sidii markii Ingiriiska la joogay ama Turkiga la joogay looga heshiiyay ayaa heshiiskii la soo celinaya nidaamkiina waa laga wada hadlaya si aan nabadgelyada diyaaradaha dul maraya aan dhibaato u soo gaarin marka waa wax cilmiyeysan oo farsamadeysan tan kale ee deeqaha dalalku waxay xaq u leeyihiin cidii ay doonaan inay wax siiyaan dalkii Soomaaliya raba inuu deeq siiyo tashaqul kuma leeyin isaga u xora si isu siinayaan oo kala qaadanayaan inta isu siinayaan sababta isu siinayaan nama khusayso laakiin waxaan khuseeya wixii loogu talagalay Somaliland hadii la soo marinayo Soomaaliya dib u ogolay waxaan rabaa qaybteeda si sharaf leh oo waxa soo ku amaada waayeel hortiisa aan loogu barxay sababtiina loo siiyay intana la siiyay mudada aan ku shaqaynayno waxa aan ku qabanayno cid aan kula xisaabtamayno halkii lagu qaybinay aan goobjoog ahaan oo cidii waxna siinaysa Soomaaliya wixii deeqda waxay siinayso toos u siiso wixii Somaliland loogu talagalayna toos leeno siiyo ee aan la oran inta waxa la idinku soo dhiibay dalka kale taas hadii ay dalka deeqda bixinaya aanu diyaar u ahayn waxaan rahaysta hadii se wax noogu talagasheen qaybtu waxay doontaa ahaatee hana loo siiyo si toosa aan u joogno uga wada hadallo oo aanu xaadir ahaano meesha Somaliland magaceeda lagu soo qaadayo xaq baan u leenahay qaramada midoobe xaq baan ugu leenahay hay'adaha samafalka iyo deeq bixiyayaasha xaq baan ugu leenahay taawintaanu leenahay aan goob joog ahaan tan kale nabadgelyada badda inaga dhaxaysa waxa jira maxaan ku raaway nabadgelyada wax yeelaya waa laga wada hadlaya meelaha sida waxa la iska kaashanayo iyo wixii u gaara wadan walba isaga u gaara iyo laga wada hadlaya xuduudaha inaan isu soo dhaafay waxyaalaha inaan iskaga xadgudbaynin sida aynu hawlaha wixii ina wada saameeyo uga soo wada horjeesanayno duufaan baa jira waxa jira maxaan ku raayay imka ay waxba ina wada saameeyay waa la iska kaashadaa iskaashi dalalka jaarka inay iskaashadaan waa waajib waana soo dhaweynayna marka hooyo waxaan leeyahay waxba basalaydin ridin Somaliland gacmo adag bay ku jirtaa inaga lumi mayso meel naga tagi mayso waynu wada ilaashanaynaa waxaanaynu baranaynaa asluubta iyo nidaamka dalla aqoonsan yahay baan noqonaynaa berdhow marka waa inaynu baranaa inaynu buuqan iyo waxan iyo murankan iyo faaladan iyo waxyaabo badan oo dan inoogu jirin inaynu horta ka yaraan toogno oo aynu miisaano hadalkeena miisaano waxa aynu gelinayno YouTube ka gelinayno iyo faalada aynu dhiibayno waa inaanay noqon mid waxtar u noqonaysa cadawga Soomaaliya ka soo jeeda